بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب والاليال وولالكين فتحي iyo darsigeennii sideedaad oo ka mid a duruustii aynu kaga hadlaynay fadlu cashri alawali min dilxijati wa axkaami alciidi waaludxiyati wa ayaami altashriiqi. wuxuu darsigeenna sideedaad ku saabsan yahay ama aynu ka bilaabaynaa xagga qodobo ahaan marka aan ka hadlayno waa qodobka tobnaad oo ka mid a 12 qodob aynu dhahanay mawduuca waynu kaga hadlaynaa. qodobka tobnaad waxaynu ciwaan uga dhignay oynu u dooranay kayfiyatu adaa'u salaati alciidi aladxaa wama yustaxabu lilmuslimi an yakhruja ilaa musalla alciidi وما يستحب للمسلم أن يخرج إلى مصلى العيد. qaabka iyo sida loo tukada salaada loo yaqaana ciidul adxaa loo yaqaana salaatu ciidul adxaa iyo waxyaabaha loo sunneeyo qofka muslimkiihi meesha lagu tukanaya marka uu aadayo, sida inuu u diyaar garooba ay tahay waxyaabaha looga baahan yahay. aan ku hormara marka hore waxyaabaha looga baahan yahay inuu qofku meesha ma garanaysaa yacni lagu tukanaya tagahaya. waxaa la sunneeyaa qofku inuu marka hore qubaysto. ciidul adxaa isaga oon wax cunin marka hore guriga ka baxo, maxaa yeelay labada salaadood oo ciidul fidriga ah iyo ta kale ciidul adxaaga ah midna horay baa loo tukadaa, midna dib baa loo yaraha dhigaa. ciidul fidriga marka la joogo salaada waxoogaa dib baa loo dhigaayo si ay dadku sakaatul fidriga loo bixiyo wakhti loogu helaa salaada dib loo yarriixaa. salaada ciidul adxaagana salaadaa la dedejiyaa si loogu soo degdego xoola qalidda iyo gowraca. halkaasay isku dabamarsan yihiin. sidaa daraaddeed qofka waxaa la sunneeyaa marka hore inuunan waxba cunin. sidii ramadaanka aad dhowr xabood timira aad sii cunaysay ma aha, kan way ka duwan tahayoo inaadan waxba cunin baa la sunneeyaa. inaa intaad qubaysato qaadata dharkaaga ka ugu wanaagsan ee ugu quruxda badan, wixii aad awooddo ama hadduu ku cusub yahay iyo hadduu kuwaagii oo aad kuwa fiican uun qaadatay nooc dooni ha noqotee waxaad haysato ee dharakiisa ugu fiican qaadato. inaad iscarfiso oo aad is-udgiso. iscarfintaasi raggay khaas ku tahay, dumarka nusuus kalaa ka reebaysa oo markay bannaanka iyo babliga u soo baxayaan iyaga ka reebahaysa. laakiin xagga qubayski iyo isnadaafinta kale iyo ma garanaysaa maro fiican oo qurxoon way kala siman yihiin ragga, walow aan la oggolayn maro dhaldhalaal iyo soo jiidasho wadata inay ma garanaysaa inay noqoto marada gabadha ku baxayso, laakiin maro ay nafteedu jeceshahay oo ma garanaysaa kuwa dharkeeda ugu fiicana inay qaadato way kala siman tahay. waxaa kaloo la sunneeyaa in takbiirta la qaado marka meesha garoonka ama bannaanka ama saaxooyinka meelaha loo markaa lagu tukanhayo, ama hadduu roob iyo wax jiro masaajidba lagu tukanhayo, in markaad sii socoto iyo inta aad meesha lagu tukan fadhidaba takbiirta la qaado salaada ka hor iyo khudbada salaada ka hor. waxaa kaloo la sunneeyaa
inuu qofku maaragtay marka uu sii soconayana waddo sii qaado isagoo sii lugayn horaanna waanu soo sheegnay marka uu soo noqon hayana dhowaan uu haddana waddo kale ku soo laabto hadday suurtagal tahay una roob iyo wax mashaqo kale aysan jirin ama uunan waddadu ay tahay meel aaminaho aadan islahayn adiga adaa halis ku galahaya xagga naftaada intaasi waa waxyaabaha yar diyaargarowga hore ah horaan baynu waxaynu ka soo hadalnay waxyaabo fara badan oo maalmahan waxyaabaha ruuxa inuu la yimaada looga baahan yahay baynu waxoogaa soo taabannay marka hadda waxa weeye waxoogaa salaada marka loo diyaargaroobahayo unbaan wax yar taabanaynaa aan ka hormarinaynaa amaa marka ay noqoto kayfiyatu adaa'u salaati ciid aladxaa salaadu ciid aladxaa waxaa marka hore lagu oogahayaa oo fiican oo sida sunnada ah in meelaha garoommada ah ama ha noqoto magaranaysaa salaatu ciid aladxaa ama salaatu ciidulfidriga ha noqoto mid dooniba ha noqoto salaadaha ciidaha ah waxaa mashruuca oo sunno ah in lagu tukado meelaha magaranaysaa meelaha bannaan ee garoommada waaweyn ee dadka badan qaadi kara ah ama baagaga waaweyn in magaranaysaa ee dadka badan qaadahayo ee dusha ka furan ee waasaca ah in lagu tukado salaadaha ciidaha ah sidaas ayaa fiican waa labadaba mid oo waxa weeye waa laba arrimood labadaba oo waa mida dadkii waasacnimay helayaan oo dhul garoon dhan markii la dhaho ha lagu tukado ummaddii waxa weeye waxoogaa nafis bay dareemaysaa iyo inay si waasaca salaaddii ku tukadaan oon la iscidhiidhin waa midda saddexaadee sawaadka ummadda muslimiinta ana waxa weeye waa shacaa'ir kale oo muuqano marka fawaa'id baa ku jirta hadduuna roob iyo wax markaa laga baqi iyo waxyaabo kale aysan jirin salaadda marka la galahayo imaamku wuxuu la imaanayaa marka hore takbiiratulixraamka markuu takbiiratulixraamka allahu akbarta hore salaada ku galo 7 jeer oo ka dambaysa haddana yuu takbiirsanhayaa allahu akbar isaga oo sidaa gacmaha kor ugu qaadahaya waa ragcadda hore ragcadda labaad meeshay tii hore 7 ahayd waa 5 takbiir 5 jeer weeye keliyeeta marka laga reebo labada takbiir ee markaynu sii rukuucayno intaynu gacmaha kor u qaadno aynu magaranaysaa aynu markaa dhahna allahu akbar markaad sii rukuuci taas marka laga reebo 5 kale weeye waxaa la sunneeyaa imaamku markuu faatixada akhriyo inuu markaa faatixada waa ragcaddii hore inuu suuratul aclaa ama suuratu qaaf inagu sabixismayna u naqaanaaye labadaa kolba ta u fudud waa ragcadda hore ogow hadda ee 7 takbiirood lahayd inuu ku tukado faatixada kadib inuu markaa akhriyo ama suuradda aynu u naqaano sabixisma ama suuratu qaaf hadday suurtagal u tahay haddii kalena dee qur-aanka waxa uunu fudud oo uuna qur-aankaba aqoonin inuu markaa hadba wixii u fudud ee kale uun ku tukado oo uu noqdo faqra'uu maa tayasara laka magaranaysaa faqra'uu maa tayasara min alqur'aan bay markaa soo gelaysaa wixii markaa kuu fudud uun inaad ku tukato laakiin haddii uu garanhayo sidaas ayaa fiican suuratu alaclaa ama suuratu qaaf ragcadda dambe ee labaad 5 takbiirood oon takbiiratulixraamkii uu ku soo galay ahayn tii hore ee uu salaada ku soo galay aan ahayn ayuu markaa magaranaysaa yuu la imaan markuu faatixada aqriya kadibna waxaa fiican inuu siduu nabiguba samayn jiray calayhi salaatu wasalaam suuratulqamar innagu waxaynu dhahnaa suuratu iqtarab baynu dhahnaa suuratulqamar inuu ku aqriyo ama suuratulghaashiya waxaynu dhahnaa waxaynu dhahnaa halataaka xadiithulghaashiya
labadaas suuradood hadba ka u fudud inuu midkood aqriyo. waxaa la sunneeyaa imaamku markuu salaada bogo inuu kaco isaga oo nabiga calayhi salaatu wassalaam ku sallinhaya, ilaahayna mahad subxaanahu wa tacaalaa ilaahayna ku mahadinhaya nicmadan alle uu ina siiyey iyo fadligan iyo ciidan iyo magaranhaysaa alle subxaanahu wa tacaalaa inuu markaa inoo dhammaystiray yacni shay weyn oo rukni yacni magaranaysaa shay aad iyo aad u weyn oo cibaado weyna alla inuu inoo kaamil yeelay alle uu ku shukrinayo. markaa kadib wuxuu galahayaa inuu magaranaysaa dadka khudbo u soo jeediyo, taas oo ku saabsan markaa ciidda iyo waxyaabaha la halmaala iyo sida aadaabteeda ah, yacni sida loogu talagalay iyo fadliga ay leedahay magaranaysaa in la udxiyaysto oo xoolo la qalo qofkii awooda, iyo qaabka magaranaysaa markaa tawsiic loo sameeyo oo yacni waa waxaynu hadda ka soo sheekaynhaynay inuu dadka u jilciyo u sharxo qofku markuu xoolaha qalo, xoolaha inuu 3 qaybood oo isleeg hilibkooda ka dhigo sida fiican, qayb isagu cuno ama la hadho kaydsado, qaybna uu magaranaysaa sadaqaysta, qaybna uu si hadiyad ahana uu jiiraanka iyo dadka asxaabta ah ku siiyo iyo qaraabada, inuu taana u jilciyo u sharxo, kadibna inuu dadka ku booriyo dhammaan magaranaysaa khayrka oo dhan, hadday tahay magaranaysaa silatul arxaam qaraabadoo la xidhiidhiyo, nashrul wuddi walmaxabba in la faafiyo yacni kalgacalka iyo isjacaylka dadka dhexdooda, waisaalatu alaxqaadi waalcafwi can innaas, iyo in layska saaro xiqdiga iyo xasadka iyo waxyaabaha xunxun ee quluubta magaranaysaa gala, in layska dahiro, iyo in layscafiyo oo tasaamux magaranaysaa ilaahay khalqigiisa aad cafido ood addoommada ilaahay cafido, inuu dadka sidaas magaranaysaa uu ku booriyo. waxaan intaa ku dari lahaa, hadday salaadu ay maaragtay ay tahay mid sideennan oo kale hadda, ilaan jamaaco berri laysuguma imaan karo oo bannaankiina laysuguma imaan karo, masaajidna laysuguma imaan karo. marka hadday musiibadan oo kala timaaddo oo ciiddii ayba noqon weydo in musiibo in ciid la tukan waayo oo jamac ahaan lagu tukado keentay ciiddii loo tukan waayo, ama adoo meel dheer ka imaanhayay ay ku dhaafto oo markaa ciiddii intay ku dhaafto aad markaa wax jamaaco kale oo aad la tukatana weydo, markaa guriga oy noqoto inaad gurigaaga adiga iyo magaranaysaa reerkii ku tukataan, waxay kaga duwan tahay khudbo iyada looma shartiyo, wax khudbo ah oy leedahay ma jirto, waxa weeye ehelka unbaa tukin, sidii aynu hadda ka soo sheekaynhaynay baad u tukin, khudbana ma lahan. intaas bay kaga duwan tahay. intaas ayaan darsigeenna ku soo koobayaa 8aad. wixii aan waafaqay waa ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajintii, wixii aan gafaynaa waa aniga iyo fahmi gaabnidayda iyo طaalibnimadayda, wallaahu aclam wahuwa waliyu towfiiq. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباده إنه قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.